xilligan walaac ba'an ayaa ka taagan dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo waxaana maamulka oo iminka hal gobol ah uu u baahan yahay gobolka Sanaag si uu u buuxiyo shuruudihiisa noqoshada maamul dhammaystiran. hase ahaatee arrintaasi waxaa ku horgudban caqabad xooggan oo ka imaanaysa maamulada Puntland iyo Somaliland haba ugu darnaato Puntland. toddobaadkii inuu ka soo gudubnay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xiran tuutaha ciidanka ayaa fariin adag u diray SSC Khaatumo isagoo ugu baaqay inay ku ekaadaan deegaanada ay maamulaan. hadalkaasi kadib Puntland ayaa soo saartay war-saxaafadeed waxayna ku dhawaaqday inay sharci ahaan maamulkooda qayb ka yihiin gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn isla markaasna aysan aqoonsanayn wax la yiraahdo SSC Khaatumo. dhismaha maamulka Khaatumo awgii gudaha Laascaanood waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo waxgaradka deegaanada SSC Khaatumo waxaase ilaa iminka hirgeli la dhamaystirka SSC Khaatumo. dadaalada dhismaha maamulkan loogu jiro ayaa toddobaadkii aynu ka soo gudubnay sababay inuu dagaal ka qarxo magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag waxaana ciidamada diriray ay kala ahaayeen kuwa taageersan dhismaha SSC Khaatumo iyo qaar kale oo taabacsan Puntland waxaana xiisadu ay iminka tahay mid weli taagan iyadoo Puntland ay ciidamo fara badan geysay gudaha Dhahar. sidoo kale 15kii bishan Luulyo golaha wakiilada Puntland ayaa si rasmi ah xilka uga qaaday xildhibaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo xilligan qayb ka ah shirka siyaasadeed ee dhismaha maamulka SSC Khaatumo ee ka socda Laascaanood waxaana xusid mudan in xildhibaanka uu maalmo ka hor iska casilay xilkan. haddaba maxay tahay sababta Puntland ay u diidan tahay dhamaystirka SSC Khaatumo? muddo dheerba Puntland ayaa ku gorgortami jirtay saamiga siyaasadeed ee gobolada Sool iyo Sanaag waxaana 16 xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ku matala goboladaasi lagu dooran jiray Garowe iyo Boosaaso taas oo ka dhigan in hadba xulashada xildhibaanadaasi ay hoos imaanaysay madaxweynaha Puntland jooga. Dani oo dareensan walaaca ay tiradaasi isdhimaysa ku keeni karto quwadda iyo cadadda uu baarlamaanka federaalka ku yeelanayo Puntland ayaa waqtigan diiday dhismaha SSC Khaatumo. sidoo kale Villa Soomaaliya ayaa u muuqata mid kasbanaysa SSC Khaatumo isla markaana qorsheynaysa in Dani ay kala harto tiradaasi maadaama la og yahay in Saciid Dani qudhiisa uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. dirarta siyaasadeed ee ka dhaxaysa Saciid Dani iyo madaxtooyada Soomaaliya ayaa xilligan noqonaysa mid dadka gobolada Sool iyo Sanaag ka hortaagan dhamaystirka dhismaha maamulkii bulshadaasi u qidmeyn lahaa waana arrin nasiib darro ku ah halgankii reer Khaatumo ay isaga diideen ka mid ahaanshihii Somaliland. iminka xaaladda ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa waxaana cabsi ballaaran laga muujinayaa in dhamaystirka SSC Khaatumo uu sababo dagaal culus oo ka dhex qarxa Puntland iyo dadka degan gobolada Sool iyo Sanaag xilli iminka siyaasiyiinta labada dhinac ay hawada isu marinayaan weerar xanaf leh.